السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان dadka halkan isugu yimid ee ka soo qayb galay xafladda qalin jabidda 12aad ee jaamacadda Burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalka xafladdan qiimaha weyn leh. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda qalin jabisay macallimiintooda waalidkood hooyo iyo aabbo malaha ayayda iyo awowga lama xusee hooyo aabbo awow ayeeyo iyo intii ka soo qayb qaadato oo dhan waynu mahadnaqaynaa waynu hambalyeynaa. waxaynu bogaadinaynaa u mahadnaqaynaa aasaasayaashii jaamacadda Burco ee fikradda keenay ee ku caloodaygay iyagana wixii dhintayna waa u ducaynaynaa kuwa nool waa u mahadnaqaynaa. waxay abuureen halkaa aynu maanta joognay arkayeen 12 sano ama 16 sano ka hor inay tan oo kala qabsoonto aad baynu ugu mahadnaqaynaa. kuwa dhintayna waa u ducaynaynaa ilaahay ha u naxariiste. hambaryadii bogaadinta jaamacadda qolada waxbaratay waxaan uga gudbayaa anigu iyo wafdigii la socday waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gobolka Togdheer sidii weyneed ee qiimaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen. waxaan oran karaa soo dhaweyntaasi waxay ahayd mid qaran waayo nin karmeed iyo oday iyo midbaku ka ixtiraam badaa madax dhaqameed siyaasi cid waliba meel fog oo magaalada ka fog bay naga hor yimaadeen. waxaan qabaa inay u muujinayeen qarannimada iyo midnimada Somaliland oo meelo badan laga ducadeeyo inay tusayeen Somaliland inay tahay markay qarannimada tahay gobol walba da walba iyo mujtamac walba inay ka midaysan yihiin oo qarannimada ay midaysan hirgelinteeda taasaa muujiseen odayaashii iyo dadweyne Burco laga hor yimid. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa qaran hadda waan idinku mahadnaqaynaa. halkan maanta wixii loo yimid waa la sheegay dardaaran hoga tusaale tacliintu qiimaha ay leedahay intii oo dhan waa la dhameeyey. laba qodob baan xuseeyaa. horta waxaan u mahadnaqayaa allaha barakeeyay gabadhii Fariida ahayd ardayda matalaysay dardaarankii ay soo jeedtay waa qaadan codkarnimadeeda sidii farshaxanka ahay ee u dhigtay tabashada ardayda meelay joogaanba Burco qulubay hadalan dhalinyarada jaamacad kasta joogta iyo marxaladda ay marayso ee u dhigtay baahidooda sidii qurux badan farshaxanka ahaydna waanu qaadanay waanu fulinaynaa wixii dan naga reebta mooyaan waxay danteenu inaga reebta mooyaan fikir iyo xaqaad bid Allah harimayno ilaahayna kiina waynu guulaysan doonaa. waxa kaloon yana xusayaa gudoomiyaha jaamacaddu wuxuu ku dheeraaday deegaanka iyo dhaqaalaynta deegaanka iyo iska beddelka dhacay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida jaamacaddiisa iyo fikirkiisu ay u mataanayeen aqoonta iyo deegaanka waana ta loo baahan yahay. dowlad ahaan annagoo fikraddaa kula qabna oo ay weliba aanu haysanaa gabadh geesiyadoo deegaanka aad u ilaaliso ku dagaalantay oo ragga kaga wanaagsan shukri waxay soo jeestay dowladdana ku qasabtay oo meel marisay oo baarlamaanka ka baaskaraysay oo ku dagaalantay wax alliya wax lagu kariyo hadduu gaaska wax lagu kariyo yahay hadduu gargare yahay hadduu disti yahay ma aha wax la karsado waxa wax lagu kariyo oo dhan inay dowladda bilaa cashuur ku soo degayso meel kasta ka soo degayaan. labada qodob waa iga xusuus hadaladii wanaagsanaa ee halkan ka baxay. halkan waxaynu ku heshiisnahay waa xaflad qalin jabadeed waa xaflad farxadeed marka waa inaan siyaasadda lagaga hadlin taana wadna ogola siyaasadda inaan ka hadlin. laakiin de waxay iga sugaysaan warka dalka oo dhan adiga dalka oo dhan de odaye bal dalkii ka warrab haddaan dalkeedii ka warrabo waxaan ku warramayaa oon anigu soo taabtay oon aaminsanahay oo runa qofka Somaliland maanta rag iyo dumar
da'da uu yahayba waxaan isleeyahay maanta geeska afrika aynu ku nool nahay ama afrikada baraynu joogno qofka Somalilandkii inuu maanta yahay qofka qura ee madaxa kor u taagi kara ee dhammaan u faari kara Somaliland soddonkaas sannadood keligeed ahayd waxa ay qabsatay in ilaahay mooyaane gacan dawladnimo lagu ictiraafay aanu dallo oranay waan ku ictiraafay ama dawlad ahaan baa lacagtaa ku siiyey waxay adigu keenaan waa sadaqo oo kale meel gobolisa lagu tuuraa laakiin waxa qabkiinu yahay oo mustaqbalkaagu inuu fiican yahay ka dhaxarkaysa oo aad ku kalsoon tahay oo aanay cidina kula qabin oo ilaahayna siiyey inaynu dalkeena u dhisnay si ka dhismo wanaagsan oo ka horumarsan oo ka dheeraynaya dhammaan intaynu jaarkana hal ictiraafsan yahay caalamku dhawa taasina waa duwadaaga dadka Somaliland waa ayo dalka aan la ictiraafin ee waliba loo dardaar wariyada dagaalamaya ee dhinac walba horumarka kooga ah mandaqada aynu ku leenahay dalka intaas oo jaamacadood samaystay iyadoo oo aanay cidina maalgelin jaamacada aanay gelin ee waliba waxa ay sameeyeen aan deyn baana inagu lahayn dawladna ugu lahayn soo ilaahay nimcadii ma hayo waxaan ku faano ilaahay ma hadnaqo niyad jabka dadka qaarkii ay sameeyaan ee warka Somaliland ma la ictiraafin miisaanid badan lahayn abaar ku soo noqdeen anigu taa ma arko xaqiiqadeedana waxaan u arkaa Somaliland dhibaato kastoo dabeecadda ka hortay way ka hortagtay oo way ka badbaad horumar kastana iyada gacanteeda ku samaysatay magaalo waliba 100 jeer bay la bilaabatay qolada waayiin oo teen sameeyay master plan-ka magaalooyinka loo sameeyay labada magaalo ee mid waliba inta ay ahayd 10 sano ka hor 100 goor Lebanon ay ka weynaatay waa burciyo bowrama marka waxaan leeyahay horta dalkaas aynu nahay dhibaato kasta u babacdhiga ilaahay ka ashada cidii wax tartan u baahdaqa dhibaato walbana ka baxa mustaqbalkeenu saas u ifaya maadaama dadkeenu dunta xariirta ay yahay ee mashaakilka ka baxa maanta dalka badhawa rubay badhawa abaar bariyada ilaahay iyo dadaal banu ka bixi doonaa abaarahana mustaqbalka Somaliland maxaynu u eegnaa sidaynu u eegnaa horta berigii hore mustaqbalka la bariyeemayna lahayn jaamaca mayna lahayn qoraal dhigaana mayna lahayn laakiin waxaan oran jiray waay aragga wax weydiiya marka odayaasheenu berigii hore manay qayri jirin waqtigeena kuma lumin jirin waxaan micno badan lahayn xusuustooduna aad bay wanaagsanaydo odayga 80-90 jira waxa la ii soo maray sida kaydka loo kaydiyo kan ku sheegay taa waan ku jabnay ka bayd taasi warasana saayir taasi waa sida laakiin maanta waxaanu haysanaa jaamacado aqoon-yahano dad taariikhiyana oo wada baaray wax aliyo wixii hore loo soo maray oo inoo diyaariyay haddaba marka si guud u dulmaro abaari way soo noqdeen hawadii baa diqowday ama xumaatay oo sidii hore iska bedeshay haddaba hadday roobka yaraaday oo xoolihii iyo daaqii inaga yaraadeen dadkiina kordhaayo maxaa inoo tala qof wal oo mutacallima qof wal oo daa waaya araga waa su'aal taala waxa la yiraahdaa taladu waa baadi qof helaya lama yaqaan ma ina yarba ma gabarba ma odayba cirale ma sheekhba waa baadi talada dadka raadi aniga waxay ila tahay marka dad badan oo wareysay ee ra'yiga gobolladii dalku dhan soo ururiyay hal mustaqbal baa aad isku raacsay inuu kaga bixi karo wax hawadiis badashay waxay noo keentay nolosheenii ahayd xoolo dhaqashada inay adkaatay inay si hor u socoto marka fikirku wuxuu noqonayaa mustaqbalka dadkeena maskaxdiisa waa inuu u jeedinaa inay badda ka faa'iideystaan badda Soomaalidu way ka baqataa ma naqaano ninka xeebta joogana nin taag daran baa loo arkaa laakiin khayraadka badda u batay jaamiciyiinta iyo researchka la samaynayo iyo aqoonyahanka waxaan u soo jeedinayaa inaanu ka fakirro dadkeenan ama ay la yidhaahdo barakacayaasha
ama dhalinyarada mustaqbalka shaqadoonka inaanu ka fikirno sidaynu u dejin lahayn xeebaha oo ay u abuuri lahaayeen nolol dhaqaale leh oo badda ku tiirsan waxaana la ogyahay maanta adduunka oo dhammi wuxuu la baxay badda blue economy dhaqaalaha buluuga ah oo wax walba laga helo talabaad ugu xigtaana waxa weeye inaynu dhulka waxa hoostiisa ku jira la soo baxdo si aad darteed waayeel iyo dhalinyaro waxaan leeyahay si aynu horumarkaa u gaadhno labadaasaa inoo dihine haddii roobkii xoolay naga yaraadeen maskaxdayna labadaana waxa inagu siman tahay qura ismaqalkeenna wax wada lahaanshaheena iyo dadka inoo imanaya inay inoo yimaadaan dad tala leh dantooda ilaashanaya ka u yimidna ay si wanaagsan wax u kala heshiiskooda u gelayaan u kala helayaan burco waa magaaladii taariikhda halganka waa halkii Soomaaliland laga asaasay burco isticmaalka markii la dagaalamayay waa halkii dabku ka shidmay Sheekh Bashiir iyo ninkii inuu madaxa dadkan cashuur ayaa lagu diray iyo taariikh badan oo ummad walba ku qadariso oo qiimo ayaa leedahay ragga maanta joogaana waa magaaladii raggaas dhalay inay aabaasho damid qodab inuu ugu ducaynayna haddii alla yiraahdo burco dee magaalo walba waxba lagu xantaa bakhaylnimo lagu xanto kaftan iyo niyad samaan iyo haasaa wanaagsan oo lagu majeertaa aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu